ra-iisul wasaaraha dowladda Itoobiya Abiy Ahmed ayaa cabasho ka dhan ah Soomaaliya wuxuu u gudbiyay midowga Afrika iyo IGAD oo labada wadan ay ku midaysan yihiin kadib afgambigii fashilmay ee dalkiisa ka dhacay ee ay ka hortageen ciidamada xabsigana la dhigay ilaa 50 ruux oo qaarkood laga qabtay caasimada dalka Itoobiya Addis Ababa xilli ay qorsheynayaan afgambigaas inay fuliyaan oo xukunka ay ka tuuraan Abiy Ahmed talada wadankana ay xoog kula wareegaan. ra-iisul wasaare Abiy Ahmed ayaa durba waxaa qoraallo u diray midowga Afrika iyo sidoo kale IGAD madaxdooda Ismaaciil Cumar Geelle iyo sidoo kale Muuse Faki Mohamed waxaana uu sheegay in qatar xoogan xilligan Itoobiya dhexda ay ka taagan tahay fashilka siyaasadeed ay ka wajahday gardaradii heshiiska ahaa ee la gashay madaxweynaha maamulka gobolada waqooyi ee Soomaaliya Muuse Biixi Cabdi 20 kiiloomitir ee ka mid ah biyaha Soomaaliya ay ku raadisayna xaalado adag ay ka wajahday oo hadda ay u baahan tahay badbaado iyo in sidii wadankaas loo samata bixin lahaa ay gacan ka geystaan midowga Afrika iyo IGAD dowladaha ku midaysan. Abiy Ahmed ayaa ku cataabay go'aan qaldan u ahaa go'aanka uu ku weeraray amaba uu ugu duulay madax banaanida midnimada ummadda Soomaaliyeed oo ka dhaxlay natiijo marnaba uusan rumaysan karin in sidaan ay noqon kartana maankiisa aysan ku soo dhicin. waa midda koowaad wuxuu la kulmay dhibaatooyin dhinaca siyaasadda ah oo waxa cadaadis xoogan ku haya dhammaan dowladaha caalamka iyo kuwa qaaradda Afrika dhaca ee darisku ay u badan yihiin. waxa uu midoobay dalalka Soomaaliya, Eritrea iyo Masar oo dhammaantood cadaawad xoogan u muujiyay isla markaana Soomaaliya ay u noqotay isku xirka wadamadaas si la iskaga kaashado gardarrada ka dhanka dowladda Itoobiya. sidoo kale waxaa sare u kacay dagaalada ka socda gudaha wadankaasi ilaa heer la gaaro in afgambi loo abaabulo ra-iisul wasaaraha dowladda Itoobiya arrintan oo cabsi xoogan uu ka muujiyay. waxaa qoraalka walaaca xoogan ee uu diray uu ku sheegay in tuhun xoogan uu ka qabo ama uu aaminsan yahay in xiisada Soomaaliya iyo Itoobiya ay dhalisay afgambiga la isku dayeen xukunka looga tuuro. sidoo kalena wuxuu sheegay inay ku lug leedahay dowladda Eritrea oo madaxweynahooda siyaasa faawaki madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud kulamo ugu dambeeyay ay ku qaateen magaalada Asmara ee caasimada dalka Eritrea. horeyna siyaasa faawaki waxa kulamo ula soo qaatay madaxweynaha dalka Masar Cabdi Fattah al-Sisi oo ilaa muddo 3 cisho uu la joogay halkaas oo lagu gorfiyay arrimo badan oo gobolka ku saabsan si goonahna looga wada hadlayay ka hortagida qorshaha dowladda Itoobiya. Abiy Ahmed ayaa u soo jeediyay dhinacyadan in tilaabada ugu horeysa la qaadayo laguna xalinayo xiisada gudaha dalka Itoobiya ka taagan ay noqoto in la heshiisiyo dowladda federaalka Soomaaliya oo la dedejiyo la kulanka madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud si ay Itoobiya gabi ahaanba uga laabato go'aamadii iyo heshiiska ay la gashay madaxweynaha maamulka gobolada waqooyi ayna iskaga dulqaado culayska ugu xoogan ee xilligan ka dalalka dariska gaar ahaan qaaradda. Abiy Ahmed wuxuu aaminsan yahay in haddii Soomaaliya uu la heshiiyo inta kale oo dhan ay u sahlanaan doonto kala furfuritaankooda oo Eritrea iyo Masar labadaba in ay iska basarayaan amaba ay xaaladooda iska fududeeyaan ay u sahlanaan doontaa. si yeeshee fashilka siyaasadeed haddii uu lugaha kula sii jiro wuxuu rumaysan yahay in xaaladdu ay ka sii dari doonto afgambiga hadda fashilmayna dib loo abaabuli doono oo xaaladdu mar kale cirka isku sii shareeri doonto. si kastaba waxaa arrintan ay ku soo aadaysaa iyadoo toddobaadyadii la soo dhaafay magaalada Nairobi caasimada dalka Kenya ay ka socdeen kulamo lagu abaabulayay kulan ay yeesheen madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud iyo ra-iisul wasaaraha dowladda Itoobiya Abiy Ahmed kadib markii uu William Ruto u sheegay Abiy Ahmed inuu ogol yahay in gabi ahaanba uu ka laabtay heshiiska la galay madaxweynaha maamulka gobolada waqooyi. madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud oo arrintaas loo soo gudbiyay dhankiisa wax shuruud ah oo adag kuma xirin marka laga raabo in heshiiskaas inuu ka laabtaa qasab ay tahay Abiy Ahmed. waxaana Muqdisho laga diray wafdi abaabulka kulankaas ka waday magaalada Nairobi caasimada dalka Kenya. inkastoo si foolka fool aysan isku arkin xubnaha ka socda dhinaca Itoobiya haddana waxaa madaxweyne William Ruto ay kala shaqeynayaan kulankan qabsoomidiisa iyadoo shuruudda kaliya la sugaya ahayd in Abiy Ahmed uu ka laabto heshiiska gardarrada ahaa kadibna madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud uu duulo magaalada Nairobi ee caasimada dalka Kenya. hadda waxaa soo baxaya xogo tilmaamaya in kulamada abaabulkoodu istaagay oo dhinaca Soomaaliya dib ay uga guratay kadib markii Abiy Ahmed uu cagajiid badan muujiyay isla markaana uu ku dheeran waayay inuu ku dhawaaqo burburinta heshiiskaas. Soomaaliland waxa wali ay wadaa qorshe ay ku muujinayso in heshiiskan rajo ay ka qabto in marka la dib u soo xoogeysto oo go'aanka Abiy Ahmed uu isbedelo isla markaana uu ku qanco fulinta heshiiskaas iyo in 20 kiiloomitir oo ka mid ah biyaha Soomaaliya laga siiyo dhinaca gobolka Awdal.